Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sida aad ku abuuran karto ganacsi adiga kuu gaar ah, maadaama inta badan Soomaali haddaynu nahay shaqaalanimo ama inaynu qof u shaqayno aad bay u adagtahay. Maanta waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo sida ugu fudud ee aad adigu shaqo ku abuuran karto. Waxaan arkay dhalinyaro aad iyo aad u badan oo maanta markii ay jaamacadihii ka soo baxeen mise iskoolaad ka soo baxeen guriga hooyadeed iska joogo ama guri dadka waalidiintood la joogo ayagoo ku marmarsiin doonanayo wadanka shaqo ma u laha iyo wadankan waa wadan aan la joogi karin. Khaasatan anigu waxaan arkay dad tahriibayba ama wadamo kala tegay ayagoo ka cabanaya shaqo la'aan. Marka ugu horeysa shaqo la'aanta waa maxay shaqo la'aan? Shaqo la'aan waxaa waaye in qofka uu waayo camal uu qabto, camalkaas oo ah kan uu naftiisa iyo weliba reerkiisa uu ku xukumi lahay ama uu ku horumarin lahay. Markaan leeyahay shaqo la'aan ma aha inuu qofka hawl uu qabto uu waayo ee wax uu waayo hawl uu lacag ku helo. Maanta cidna ma jirto qof shaqaynayo lacag la'aan ama qof bilaa wax uusan waxba ka faa'iideyn ku shaqaynayo. Channel-ka haddii aad ku subscribe inoo saar. Waxaan rajeynaa ama waxaan filaa in noloshaada wax badan aan ka bedeli doono haddii sheekada aan kugu soo bandhigo ee wax badan ay ka anfacdana fadlan subscribe saar channel-keena Somali News si ay dhiirigelin ay noogu noqoto waxyaabo fara badan oo maskaxdeena ka guuxayana aan idinla wadaagno dhammaantiin insha Allah. Ugu horreyntii tusaale ahaan arday waxaa tahay jaamacad ka soo qalin jabiyay xirfadaad u baahantay aad ku shaqaysato. Xirfadda 3 nooc ayaa loo qaybiyaa. Xirfad gacanta ah inta badan waxaa leh dadka ka soo baxo iskoolaadka hay'adaha ay haystaan. Iyo xirfad hadal qof aftahanaad maanta sida ogtahayna ganacsiyada dhan waxay u baahan yihiin waxay dhahaan marketing ama qof u adeego oo marketing ahaan badeecadooda ama wax ay hayaan dadka ka gadi karo. Sidoo kale waxaa leedahay xirfad aqooneed. Xirfad aqooneed taasoo ayadana aad ku shaqaysan karto. Saddexdaas xirfad qof aan lahayn uma malaynayo inuu jiro. Maxaa yeelay waa 3 xirfad ama waa 3 shay oo ugu badan dadka. Qof maanta jaamacad soo dhameeyay oo ku dhahaa xirfad ma lihi hadal, haddana ku dhahay ma lihi xirfad aqooneed, haddana ku dhahaa ma lihi xirfad hadal iyo aqoon iyo farsamo. 3daba inay jiraan uma malayn haddii ay jiraanna aad iyo aad ay u yar yihiin. 3da ayaan rabaa inaan idin kala qaado xirfadda gacanta. Xirfadda gacanta aad taqaano waxay noqon kartaa inay noqoto korontiiste, inay noqoto sida wax loo xiro, inay noqoto sida wax loo kala rakibo, inay noqoto wax gacanta laga qabanayo. Wax gacanta laga qabayo markii aad taqaano maanta Facebook wuxuu noqday aaladda ugu badan ay dadka ku macaashaan. Ugu horreyntii waxaan kugu waaninayaa inaad page furato ama adigoo user-kaaga aad ku xayeysiiso xirfadda aad hayso adigoo ku share garanaya group-yada iyo weliba meelaha public dadka ay joogaan. Lambar 2 waxaad haysataa xirfad aqoon. Xirfadda aqoonta aad haysato waa 2 nooc. Cilmigii aad soo baratay ayaad haysataa xirfadiisa. Laakiin waxaa leedahay meel aad ka shaqayso iyo si aad ugu shaqayso. Cilmigaas aad soo baratay tusaale ahaan waxaan soo qaadaa tusaalaha ugu fudud. Cilmiga beeraha ayaad soo baratay. Waxaad u baahan tahay in bal cilmigaas aad wax ku hesho. Ugu horreyntii waxaad sameynaysaa beeralayda kuugu dhow ayaad inta u tagto aad leedahay seminaaro ayaan idin qabanaa. Seminaaradaasna sida ogtahay beeralayda wax dhaqaale ah ma ku baxo haddii qofka uu seminaar uu qabo. Maxaa yeelay beerahooda ay inta badan
dadka aad ugu tegaysaa. Dadkaas waxaad u faahfaahinaysaa wax soo saarka heerka ay ku sare ay ugu qaadi lahayn. Taas waxa ay ka dhalanaysaa in dadkaas qayb ka mid ah ay ku dhahaan nala shaqay ama aduguba kaalay noo hormari sidaas aad shaqo ku hesho. Dhanka aqoonta waxa ay noqon kartaa inaad sidoo kaleento xirfad markaas aad leedahay adigu oo aqooneed inaad dadkii aad uga faa'iideyso aad u qabanayso seminar u qabanayo ama buugaag intaa qoro dadka u gudbinayo. Midda saddexaad waa xirfad hadal. Hadal waxaa tahay qof maanta aftahan ah wax waliba dadka ka gadi karo. Shirkadda kugu dhow ama ganacsiga kugu dhow ayaad leedahay. Waxaan rabaa inaan idin suuq geeyo, inaan dad macaamiil fara badan aan idinku soo xiro. Ma jiro qof ku dhahayo ha nugu soo xirin. Gaar ahaan waliba isbitaalada ayaa ugu caansan. Isbitaalada maanta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waa isbitaal runtii aad iyo aad ay u liidato booqashadooda. Isbitaalada is leedahay xoogaa dad booqashadooda yar ayaad u tagaysa. Waxaadna u sheegaysaa in suuq geyno weyn ama suuq geeyo weyn aad u noqonayso, taasoo ka caawinaysa in ayagana ay wax helaan. Sidoo kaleeto adiguna aad wax ka hesho adigoo waxa ay sameeyaan ama haddii ahadan qaliimaha ahadan markaas ay fulinayeen. Waxaa leedahay mashaariicda iyo horumarada aad haysiin kuwoodina ugu caansan keenaa leedahay. Kadib sidaas ayaa bulshadii ugu gudbinaysaa. Ma jiro maanta qof bilaa shaqo ah haddii uusan asaga meesha uusan is dhigin. Sheeko yar ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Sheekaas waxay dhex martay nin caaqil ah oo wiilkiisa uu ka qalin jabiyay jaamacad shaqana uu waayay. Nin ayaa hadda ka hor wiilkiisa jaamacad uu dhameeyay. Markii uu jaamacad uu dhameeyay dhaqaalo dhan uu ku bixiyay waxa uu filayay in wiilkiisa uu xirfadiisa u soo bartay oo ku shaqaysan doono. Laakiin wiilkii guriga ayuu ku soo laabtay asagoo ku marsii doonanay inaysan dalka shaqo lahayn. Wiilkii aabihii aad buu uga walwalay. Waxa uu isku dayay inuu shaqo u raadiyo. Qof haddii aysan asagii ka go'anayna shaqo walbo loo keeno wuu wacaya. Marka shaqo walbo uu keenay waxa uu dhahaa aba waxaa rabaa inaad la shaqayso qof hebel. Waxa uu leeyahay qof hebel anigu ma la shaqayn karo waa qof caynkan. Waxa uu yiri adeerka oo ganacsi hebel u tag cidda shaqaysay wuu ka faanay. Wuxuu yiri adeerkay intaan u tago ma dhihi karo shaqaysay sababtoo waan ka faanaa asaga la rabo inuu iskarto. Abti u tag abti sidoo kaleeto. Habaryar u tag habaryar sidoo kaleeto. Wiilkii iyo aabihii aad bay isugu dhiban yihiin. Wiilkii dhaqaalo dhan ku baxay. Wiilkiina wuxuu taagan yahay wax shaqo oo dalka yaala ma laha. Wiilkii wuxuu u go'aansaday inuu tahriibo asagoo aabihii ka dhuumanayo. Aabihii wuxuu yiri aniga inta aan joogo ma dhuuman kartid mana ka bixi kartid. Magaalada aan joogno fadlan haddii aad u baahan tahay shaqo aniga kaale ee daba soco. Wiilkii subax walba aabihii ayuu daba socdaa. Subaxii kale ayuu yiri aabo anigu inaan ku daba socdo waxa ima soo kordhinayso. Waxa ay dhaanto inaan adeeraday aan daba socdon shaqo ka raadsado. Sidaas ayuu wiilkii shaqo ku helay. Marka xirfad mar waliba way ku anfacaysaa. Waan filayaa inaad ka faa'iidaysatay insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.